والله الحالة الحمد لله وتكنتهي محن كل هذا عرض أنا هذا تكنتهي خلاف كلا شوهانتي هو الدين بس يقولوا إيجو خلاف لما أذكر الحالية يعني إسلام دهر تتعوي أنا قلت كل أنت الأبناء هو نتالية قيادات بوليسة أو فدرال حق له مقاعدتيسا ayaa ninkii meesha joogay loo magacaabay kadib warqad xafiis ka dhaxtooyada qoran ayaa iyaguna ninkii meesha ku celiyay intaan arrintu hadda fasasina sida wararka ku helayno arrinkaas si sharciga ah oo marka hore soo maray ayaa hadda galmudug laga ogolaaday marka si caadi oo marka ilaa halkaas u dhaafo marka sababtoo ah wixii wax fasaxinaya lagu darwiis wasiir Axmed Shire xog ogaal baad u tahay xaalka deegaanada galmudug muddo badan la ka soo shaqeeyay xilal kala duwan la ka soo qabtay isfaham waagan ma la dhihi karaa waxa uu dib u dhac u keenayaa dadka iyo deegaanada galmudug dadka wixii isfaham waa run oo u keenaya laakiin galmudug ma ahan galmudug cusub waa galmudug soo jirtay oo madaxweyne ku soo bedeleen oo nidaam iyo soo martay haddii ay ku nidaam hadda waxa jira ka hooseeya iyadoo ay jirto haddana intaasoo madaxweyne isu soo bedeshay weeye maanta oo haddii ay ku rooyahay dowlad u gudubtay in dadku ay gaaraan qof iyo cod dowladdeedan oo ahmed qorqodaha uu yahay ay labadii sano u dambeysay ama saddex sano u dambeysay dowladda kala shaqeynayay arrintii gabadh noqotay taariikh la qaatay kaliya waxa la sugay ay tahay tan table maamulada naga horeeya in waqtigiisa loo beeqaadiyo doorashada ay galmudug u dhaqaaqday madaxweynaha galmudugna uu ilaamiyey xisbiyada iyo dadka kale ee tartamaan rabaana ay soo wada diyaariyeen wixii saacadan dhex galay waxa weeye waa inaan dad kala hayn ama galmudug ama Soomaaliya ama meel kale ka shidaal qaadanaysa marka ma umaleyn cidna inay hadda si deey karto inay arrinta halka maraysa ay carqaladayso sabablaan horumar badan baa deegaanada galmudug ka socda haday noqon lahayd ismihii dekada halka laga qabo shidaalka in dadku iyo deegaanada galmudug ama wadda Soomaaliyeed ay ka faa'iideystaan dhismayaal ka socda deegaanada galmudug haddii khilaafkaas sii socdo waxyaabaha oo idin horumarka bulshada soo dib u dhac kuma iman karo aad waxa aan ka digayno oo sii socda waxa weeye waa arrin leeyahay shay cadow ka dambeyn kara taas markii barfayskii wax soo socdeen oo si wax loo dhigayo in doorasho qof iyo cod la qaadanayo in mid dad la qaadanayo in mid dhex la qaadanayo haddii ay ku leeyahay laga soo gudbay oo dadka Soomaaliyeed meel jawaab loo kala baxay kooxa taagan dalka doorasho ka dhimayso waxay rabaan aan sheegin kala laafsana ka wada meel walba Soomaaliya ka mid tahay magaalada kale galmudug ka badqabtay qolooyinka saaran moodaa hadda in dalka ay dowladda galmudug ka furtay aan sheegin aad ugu sii tiirsado haddana hawsha hadda faraha ka baxsana waxaan isleeyahay madaxweynaha hadda galmudug maaragtay wixii ogolaaday iyo wixii sameeyey isbedelka ku imaan kara wax la fahmi kara maahan doorasho isaga u horeeyo qof iyo codax ayaa la galmudug iyo Soomaaliya anfacaysa wixii intaa ka baxsan waxay noqonayaan wax qaawan oo haddii la ku rooyahay shisheeye wado oo galmudug lagu calqaadeynayo taasoo dadka reer galmudug iyo waxgaradkooda iyo siyaasiyiintoodu maanta cid kastoo arrintaas ku qaldanta oo barnaamijkaas aan qaadanay doorasho qof iyo coda gacan midiga la kaga qabanaya doorashooyin aan awalba haddii lagu joogo lagu ilaaliyo waxay u dadayda ma ahayn mid doorasho ma ahayn haddii ay ku xal mastuur marka waxaan isleeyahay madaxweyne waa og yahay dowladiisu
haddii loo ay u bareeraan inay markaas ku kala galaan inay qabtaan sameeyaan qoladii hore isku day way jiraan oo waxba ka faa'iido sababta ummadda Soomaaliyeed ee faa'iido ama maamulkeeda ha ahaato markaan cidna uma isdhigtaa inayso in qof iyo labo iyo shan dala daawun leh inay dadka ama qabiil ama waxay ay u soo gudbiyaan dadku waa bislaada waa la gaaray waxa kaliya maanta xitaa laga qaado waxa weeye in deegaanaas ay ka dhacdo doorasho xalaal ah oo qof iyo cod ugu dambeyntii maxaa la gudboon siyaasiyiinta waxgaradka iyo aqoon-yahanka adigu baad ka mid tahay in aan arrintaa aysan faraha ka bixin maxaa idinla gudboon والله بكي أساس السياسة لغته صومالي أقويها اللي كلو عقلنا اللي بدي كلو سياسيين اللي بدي كلو وهو حكتهم بدية البضاء إشارين كاس حكتهم بدية تنسوا الجارة وده كان نقول عن جارها بوصومري صدق سوء الدبي كوحق الاستشفاء أيوه بحنقول هذا ay waftu uban tahay dowladnimada iyo nidaamku dowladda hadda federaalka oo xarkaas ay jabtay maamul goboleedyada in xarkaas la jabtaan sayna hatta xukunka beesha joogaana ragii meesha keenay baa kamid ahay ayuu madaxweyne joogo ilaahay ma taafiya Ahmed Ducaale Geelaxaas oo madaxweyne yahay oo sharci yahay ayaa haddana si bareera loogu tagay oo leeyay madaxweyne maxaan ku leeyahay Ahmed Ducaalow kursiga maxaan ku leeyahay khilaafkiisu iska yaraado nasiib insha Allah si dikaas kale waa madaxweyne Ahmed Qoorqoor toddoba lix sano dowladda dubayada kalbu hal khilaaf oo siyaasadda bijiri waa isku talansulay Ahmed Qoorqoor waxa isleeyahay markii uu taaqiimeeyo galbu hore u tijaabisay in la isku sida doorasho in loo hameyn karo qof maamulku uu ka tirsaday hagar daaminay si loo ogaado waa la tijaabiyo waxba guul weyn lagu gaaray